waxaa kaloo jira in shaqadii aynu lahayn shaqooyinkii aynu lahayn oo dhan ay inta badan la wareegeen bilmatalan ba waxaa jirta iminka ra'iislayaasha dad baynu u ogey muwaadiniin oo ka shaqayn jiray ra'iiska gashaba dad Oromo ama Xabashiya haysta oo ku shaqaynaya waxa weeyaan marka waxa jirta urur waxa jira ra'iislayaashu ay leeyihiin markuu arintaa u kuur galo ee uu siraadaad wax ka qabatid ururkaasi waxa dhacda in dadka Itoobiyaanka nooc doonama hada ajnabiga in dad kale difaacaya ay soo baxaan oo shacbiga Soomaaliland kamid ah waxa kale oo iyaguna jira hay'ad difaacaysa oo jirta oo iduna markaa soo baxda oo tira dadkani waa dad sharci ku jooga wadanka waana ka shaqaysan karaan marka shaqooyinkii aynu qabanaynay oo taa ra'iislayaashu ay u badan tahay oo la wareegeen intii badnayd marka waxaan soo jeedinayaa dadka soo galeetigii dhibaato fara badan bay nagu hayaan xanuunaya cudurrana way jiraanoo waxaa laga yaabaa meelaha ra'iislayaasha wax badan oo kala ka socda oo dadka Itoobiyaanka ay sameeyaan drug baa lagu iibinayaa maxaan ku raadayay xanuun baa jiro cudurka fayraska bay faafinayaan oo maxaan ku raadayay jira oo u baahan taxadirkiisa in isagana laga yeesho marka waxaan soo jeedinayaa in xukuumadda iyo dawladaha hoose ee liisanka siiya in ay ka fiirsadaan hay'adda ururka ra'iislayaasha ee shaqeeya ee ku xidhanna ay la tashadaan markay cid siinayaan liisan intaa taasaan ku dhaafaya dadka soo galeetiga